وهجاك داود يال هذا دين عيجا واحد شوجا حل بس عيسوكية وكمية مدنياش عصوبة جلها وكيلة السوماليلان xildhibaanku waxa uu maanta ka soo muuqday shaashadaha ama muuqaalkii tooska ahaa ee laga baahinayay fadhigii maanta ay ku doorteen shirgudoonka cusub iyo waliba dhaarintii la dhaariyay mudanayaasha cusub si xasaanadooda ugu buuxsanto isagoo la ilmeynaya kitaabkuna gacantiisa uu dul saaray yahay xildhibaan dadku waxay isweydiinayaan bal ilmadaas maxaa sababay wali xildhibaanadii hore ee soo maray golayaasha kala duwan ma dhicin arintani bal daawadayaasha sharaxaad guud ka sii dhaartu waa wax aad iyo aad u adag waa wax aad iyo aad u culus waa mas'uuliyad weeyaan aan u qaaday ummadan in aan u shaqeeyo sidii laygu dhaariyay in aan daacad ka ahaado diinteyda iyo dalkayga iyo dadkayga oo aan ugu shaqeeyo sinaan iyo cadaalad inta aan xilka hayo fulinta waxyaabaha iyaga ah ee aan ku dhaartay ayaa igu oohisay in aan ka boqo oo aan ka tiiraanyoodo oo aan ka murugoodo in aan ku saaqido fulintooda isla markaana jaanib kale ayaa ii ahayd oo ah Siciidow wadigaa dhaar kitaab gacanta saaray 3 wala bilow wadigaa ku maray arrimaha iyaga ah waynaad fulisaa aniga oo og in fara badan aan arinta iyada ah igu saaciday in yarina igu saacidayso waxa aan xasuustay in maalinta yoomul qiyaamaha la weydiin doono dhaartaas fulinteedii wadii aan saan u fuliyana ay noqonayso inaan ka mid noqdo mid ka qayb gala harka Ilaahay maalinta harka Ilaahay ma harka Ilaahay si jiro haddii aan ku saaqidana inaan kaar cala duul ah aan u goosanay ilaa naar jahannam wal billah marka waxa igu oohiyay jawaabta aan ka bixin doono mas'uuliyadda jawaabta aan ka bixin doono maalinta yawmul qiyaamaha haddii aan la kufo Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa ka barayaa inuu 28 gaabana garansiiyo waxa aan u dhaaranay inaanu walaalowno oo u bahowno oo dadkayaga iyo dalkayaga iyo diinteeda aanu dhammaan ugu shaqeyno sinaan iyo cadaalad iyo ikhlaas insha Allah biidhnillaahi alkariim alxamdulillaahi rabbil caalamiin isbedelka maanta dhacay adeer wuxuu ahaa isbedel aynu u baahnayn waqti fog si isbedelkaas uu xaqiijiyo xaqiiqada dastuurkeenu uu ina farayo ee ah dalka inay ka jiraan 3 dhardhaar oo shaqeynaya oo aan haba yaraatee midna mid inuu la shaqeeyo mooyaane inuu kansal gareeyo aan ogolayn maanta waxa u bariyay Soomaaliland waa cusub waaga cusub oo ah waa maanta ay si wanaagsan u wada shaqeyn doonaan si wanaagsan ay u wada shaqeyn doonaan 3 dhardhaar ee fulinta iyo garsoorka iyo golaha wakiiladu waxa aad iyo aad maanta aan ugu faraxsanahay inaan qayb ka mid noqdo xildhibaanada fursadda maanta u helay inay awood u yeeshaan inay u shaqeeyaan dalkooda iyagoo oo rag ah oo aqoon ku hubaysan iyo daacadnimo iyo dadnimo oo aan Ilaahay mooyaane cidna uga baqanayn in ay fuliyaan wax kasta oo u wanaagsan dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda maanta waxaan leeyahay it is a happy day